oo wadankii oon hagaagin waa wasiisi xanuun iyo cudur aan waali ahayn iyo walbahaar dhammaan yay la wacsan yihiino waa kind of stress. We have all stress. To go back. Abdi Wahido wadan Kenya adiga u wasiira wararkii u dambeeyay adigoo wax qarinaynin waadax nooga waraabi haddii ayna wax taraynin wadaadada isku sheega la ordaayo warmaha darajada wax ka siiyo waan bal hal lagu dayo wasiira warkayga ha u qaada wasiisi waa warbixintii wadanka salaan mudan oo macaan oo ka timid maskaxaha fayow salaan mudan oo macaan oo ka timid maskaxaha fayow wasiirow naga gudoon mudan hoo naga gudoon maamuuskiya sharaftan mudan hoo naga gudoon Soomaaloon kala maqnayn mudane hoo naga gudoon. Welcome to Toronto. Geerarku waa dheer iyo dabada la is haystaa. waxaan ka codsanaynaa khiyaarta gadaal taagan inay soo fariistaan barnaamijka intiisa dhiman ayaan dhamaystiri doonaa inta insha allahu tacaala marka ha la isku dul qaato markaan barnaamijkan fulay waxaan idiin sheegay in kooban ayaan idiin wadi doonaa haddana inta ka dhiman waxaa idiin dhiraandhirin doono idiin wadi doono walaalkay maxamed teenis marka waxaan leeyahay enjoy kusoo dhawaa wasiir mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullah. السلام عليكم لمان dadweynaha reer Toronto waa salaaminaa waxaan mar labaad salaaminaa martida sharafta leh oo noo timid caaw dhammaan wasiirka ra'iisul wasaare ku-xigeenka koowaad isla markaasna wasiirka tamarta Duwaahid Cilmi Umar xildhibaan kusoo dhawow Toronto sidoo walaalkii Saciid sheegay waxaan barnaamijkan aan soo diyaar gareynay oo aan ugu talagalnay jaaliyadda Soomaaliyeed halkaan inay ku soo dhaweyso wasiirka uu nooga yimid wadankii nooga yimid wasiirka dowladda midnimada qaran oo hogaaminaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed marka waxaan hadda ku soo dhaweynaynaa mikrofonka Generaal Abdulqaadir Khaliif Cabdiraxmaan Khaliif ayaan ku soo dhaweynaynaa oo halkaan Allah yareeyo السلام عليكم. Somali hanolato. عبد الواحد علمي كون شيخ أنا عبد الواحد سوى teenager ودكسي كهوسا دكتور أنا ومقالة وشوقي ديسكاها وارنيا مركا أدبان وأخانا odayga dhalana waa aqaana oo odayaasha wuxuu ahaa marka hore ilaaladaha markii dambe booliska lagu wareejiyay waxay la tahay Cabdulwaahid waa ku soo dhaweynaynaa wasiir deputy prime ministerna waxay la tahay wax kale oo war fara badan Cabdulwaahid laga sii sheegay ma jiro aad baa meesha maxaa looga sheegay anigu waxaan rabaa dawladda oo nagala joogo wasiirku intaan ka warqabno wararka aad baan u ognahay wixii hoos inaan ogeeyno waa sidii qofkii gabadhii hore ay sheegtay muxuu ahaa malaha wasiirka inoo cadeyn doono dawlad haddii ay qaran jiro horta dawladdu marka hore waan ognahay inta ay xukunto waxba kala qarsan mayna dawladdu yar bay wadanka ka xukuntaa runtiina wax iyaga hadda dambi lagu saaro ma jiro dadka Soomaalida oo dhan jihaad baan ku jiraa la waxbaan xoreynaya horta yeen ka xoreynaa yeen la jihaadayna inaga dhaxdayna ba jihaadayna inaga ba islaynayna waxa
يعني واحد شهادة واحد لو دوا إثيوبيا مركز حمر صوب شيء أوكي كشهادة بقى رجبها وحي كتب بي وايد عنده له شهادة هنا هذا الصومالي هالسويديو وحوان حرين النبال اللي هي حرين حرمة دي وين حرون شاء أفرت كنت سنين هذا حرنا وحي اللي يمد أنا ما بسوق يعني من دوا اسكو شيء إن الصومالي هرتو حمي نافهم ضل كان وحكى على قدام عسية طبعا وحال قدام عسية تذكر وادوتهم وحبضوا عنين وحسحرها الليبيا السودان ودحية عنين يا واحد محبد الشيء يا واحد قاش الشيء تصوي يا ربنا كوصل بحضور إنه وإنه كمدنا ضل كان أنا هذا دولة مقعد شيء ما يعطاه حق قرنيسة أو قرنيسة ضل كان تذكر على دحل الدولة إير أو رير بادية أو محبد قرنين إنه كوا هذا تشوفه ماشي كواري وبدن مركي كوصل هران بدأ إنه وصل فرم الدولة وذبت نك كينيان كي قرير إثيوبيا يكيني على الواقع الصومالي نك سبلا شو معدل وحبوا وجيه فهمتي وردلك على دحل الدولة يسكت بيت من قلنا ردلك إني ما هبيسنا وإنه بتقولي ما قادنا وده دولة ده أنا وحنا الله إنك استوى حوين وكون عنا توسجل هرت دولة ده وين أي سنة وهذا دولة ده هلا صبوت كرايم ماشي مطار وين صبوت كرايم قف صومالي ما أنت ديد المشلو runtii waxa weeye laakiin dawladdu waa inay dhaqdhaqaaqa badisaa kuma eedeynayno may muxuu ahaa jabhadaan muxuu ahaa diiniga may la hadlaan ku eedeyn mayno markii dawladdu intaa way hadashaa laakiin waxaan nahay nimanka wadaadada wax diidan waatii wadaadku hadlayo wadaad muxuu ahaa ducada iyo qarnaasiya dhigaal arki jiray wadaad qori wato ordayo waxbaan dilayo waxbaan xoreynaya waa waxyaalaha cusub ee aynan garanaynin hadda soo baxay أنا وحنا نورنا شال وزير وحنا أنا وكل دردارمنا دولته هرت قرن عن عيدا لهين أنا وجو رجع عيدا كان كمدها نكى وذاك على 5 دقيقة أنا وحوق أنه شن كان كنت 8 دقيقة أنا الله يعنو مركا قرن عن عيدا لهين وقت قرن ما أنا أشيل وحنتي لما شيل واشنطن شركة وحاقة بنقابية وزير كوريك عشان لقى iyo ninka wakiilka ku ah uga muxuu ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay ninka Soomaaliya wakiilka waa Axmed Wali Abdalla rag badan oo saraakiisha ayaa meesha la isugu yeeray qorshiyo balan baa sameynay wixii muxuu ahaa qorshiyo marka balankii noo keenay waxaan sameynay ciidamadii sidii loo soo celin lahaa waxaan sameynay ciidamada Soomaaliya sidii loo tababar lahaa waxaan ka hadalnay dhulkii lagu tababar lahaa qaabkii loo tababar lahaa tiradii loo baahnaa la tababar lahaa waayo anaga Soomaaliya hadana maanta ciidankan u baahnaa waa ciidan nabadgelyada soo celiya ciidanka hore Soomaaliya huge ka weynaa ma u baahan rag baa markii hadda wuxuu ciidanka Soomaaliya 100 kun buu ahaa qaar waxay sheegeen laakiin ciidanku ciidan badan buu uma baahan ciidankii badnaad laakiin waxaan u baahnaa ciidan soo celiya nabadgelyada dalka soo celiya midnimadii qaranimada Soomaaliya qorshahaas waan sameynay waan dhamaystirnay ninkii hore wasiirka la bedelay iyo ninkan wakiilka Soomaaliya ayaan qoraal ku dhiibnay oo habka hadii la raaco waa la sameyn karaa ciidan dawladda waxaan ku codsanay kaliya dhaqaale inay raadiso dhaqaale inay raadiso ciidankii 100 kun ahaa 50 kun ahaa 60 kun ama aan shaqo 60 kun baan waa laga yeelan karaa 15 ciidan hadii la sameeyo Soomaaliya anigu waxaan bilif gareysnaa anigu rag ugu khibrad badnaa saraakiisha ciidamada oo ciidana oo qalabkoodii iyo saadkoodii si fiican loo sameeyay loo hayo hadii la keeno wadaadna waa laga reey karayaa waxaan xul kala dhuxulayaasha dhan waa laga reey karayaa waa shaqo toban kaliya oo ka badan hadii la raaco taas marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay ku dadaasho inay dhaqaale yeesho ciidankan la socdo waxaan kaloo aan ka hadlay ciidamada banaanka lagu tababarayo Uganda qaar la geeyay Djibouti la geeyay meelo kala loo wadaa برلمان معنا عيدا كتبت وحتى برا ليش هذا محافظ ويران لا تصدق سكان بافكر وحتى برا كره بناك يشوفه وده بيجي يشوفه لو نوالا هيسنا وحتى برا كره عيدا كالجينا يوغندا يو بروندي تشيبوتي وحالا صوبر يا لكن كتقول كالو برايو لو كتب برايو ترجمان وين ناس كان قاف ما يقان ترجمان بالو كان إنسان قالوا بحاجة بقالا سلوك هنا هكذا تصل كذا